waa markii ugu horeysay oo uu soo gaaro gobolka Shabeellaha Hoose wasiirka maaliyadda dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya Axmed Maxamed Xuseen gaar ahaan degmada Afgoye ee gobolka Shabeellaha Hoose waxaana wasiirka ku wehelinayay socodkiisa gudoomiyaha maamulka gobolka Shabeellaha Hoose Ibrahim Aadan Cali Najax waxaana degmada Afgoye ku soo dhaweeyay maanta maamulka degmada Afgoye wasiirka maaliyadda dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya Axmed Maxamed Xuseen iyo gudoomiyaha gobolka Shabeellaha Hoose Ibrahim Aadan Cali Najax ayaa si kadis ah waxa ay ku kormeereen goobaha lacagaha looga qaado gaadiidka ka yimaada gobolada dalka iyo kuwa aadaba sida mukayga degmada Afgoye iyo kontaroolka Baar Ismaaciil halkaasi oo ah goobaha lagu qaado lacagaha gaadiidkaasi gudoomiyaha maamulka gobolka Shabeellaha Hoose Ibrahim Aadan Cali Najax ayaa warbixin ku saabsan xaaladda ay ku shaqeeyaan shaqaalaha wasaaradda maaliyadda siiyay wasiirka wuxuuna ka codsaday in loo dhiso shaqaalaha xafiisyo ay ku shaqeeyaan oo ka bedelan sida ay hadda ku shaqeeyaan. Salaan kadib mudan wasiir farxad ay noo tahay inaan kugu soo dhaweyno degmada Afgoye oo ah labada bar control wasaaradda maaliyadda ay kastanka ama canshuuraadka ay uga qaado dadweynaha si gaar ah gawaarida waaweyn ku yaryar ay isticmaalaan wadadan muddo fara badan 4 sano ee la soo dhaafay halkan sidaad ka dareemaysid waxaa joogay shaqaale ka shaqeeya nidaamka dawliga ahna runtii si fiican ayuu uga shaqeynayay laakiin dhibaatooyinka ay qabto adaa ugu horeeyo indhaha ku arkaya waa meel u eg hab difaac oo kale waxaan rajaynaynaa inaad anoo fursaddan ka faa'iideysanahay halkan aad ka dhisi doontid xarun fiican. ugu dambeyn wasiirka maaliyadda dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya ayaa ku dhiirigeliyay shaqaalaha hawsha ay hayaan isagoona sheegay in wax badan laga bedeli doono xafiisyada ay ku shaqeeyaan waxa uu sii raaciyay wasiirka hadalkiisa in wasaaradda maaliyadda dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya lacagaha ay qaado dib loogu soo celin doono bulshada si loogu horumariyo kaabaha dhaqaale nolosha dadka iyo horumarka deegaanada dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya inaan u kuur galno oo aan hubino qaabka ay u shaqeyso wasaaradda maaliyadda qaybteeda degmada Afgoye sidaad ogtiin degmada Afgoye waa degmo aad muhiim ugu ah markii la fiiriyo dhinaca wax soo saarka iyo dhaqaalaha guud ahaan Soomaaliya gaar ahaan deegaanada Koonfur Galbeed waa meesha ugu muhiimsan oo ahmiyad gaar ah u leh dowlad goboleedka Koonfur Galbeed wasaaradda maaliyadda waxay ku leedahay shaqaalaha u joogo waxay ka shaqeysaa laba kastam oo kala ah Baar Ismaaciil iyo kastamka mukayga marka ujeedadeena maanta waxay ahayd inaan dhiirigelino shaqaalaha meesha joogo aan hubino qaabka ay u shaqeeyaan aan fiirino ogaano waxyaabaha ay u baahan yihiin iyo caqabadaha haysta inaan ogaano aan xog wareysanay ahayd waana la kulannay shaqaalihii sida gudoomiyaha uu sheegay runtii xaaladda shaqo ay ku jiraan